السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن أو ونكسن dhegeystayaal kusoo dhawaada warka radio Gedo idin kaga imaanaya xarunta dhexe ee raadiyaha oo ku leeyahay degmada Doolo Soomaaliya anigoo ah Cabdinuur Cismaan Cabdi ayaa warka idin socodsiin doono qodobada aad warka ku dhageysan doontaan ayaa waxa kamid ah erga isugu jirta suldaamo iyo waxgarad ka socday degmooyinka Doolo balad Xaawi iyo Luuq ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee degmada Doolo Soomaaliya kuwaas oo ku sii jeedo magaalada Kismaayo kuna looga hadlayay qoondada haweenka ay ku leeyihiin kuraasta baarlamaanka Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo waa sidee xaaladda magaalada Dhuusamareeb ee maalintii shalay ahayd qaraxyo ay ka dhaceen dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa wada shirweynihii ugu horeeyay ee maalgashi kuwaasi waxay ahaayeen warkii gudaha akhbaaraadka dibadda idin kaga haynana waxa kamid ah Mareykanka oo dadka sharci darrada ku jooga soo qabqabanayo isku soo laabasho wanaagsan aan ku bilaabay ergo isugu jirtay suldaamo iyo waxgarad ka socday degmooyinka Doolo balad Xaawi Luuq ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha degmada Doolo Soomaaliya kuwaasi oo ku sii jeedo magaalada Kismaayo warkaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya Maxamed Macalnaadan qaar kamida salaadiinta iyo cuqaasha gobolka Gedo ayaa maanta ka duulay garoonka diyaaradaha ee degmada Doolo Soomaaliya waxay ku sii jeedaan magaalada Kismaayo halkaasi oo dhawaan ay markaasi ka bilaabanayso soo xulista xubnaha markaasi ka mid noqonayo baarlamaanka Jubbaland ee cusub salaadiinta safarka waxa ku helinayo gudoomiyaha maamulka degmada Doolo Soomaaliya Bashiir Xasan Cabdullaahi oo howlo shaqo magaalada Kismaayo markaasi u aaday ku xigeenka maamulka degmada Doolo Soomaaliya Aadan Barra Cali iyo qaar kamid ah salaadiintii maanta ka ambabaxay degmada Doolo Soomaaliya ayaa warbaahinta halkaasi kula hadlay waxaan sagootineynaa odayaashii reer suldaanadii ogaasyadii nabadoonadii dhammaan saaka waxaan sagootineynaa in aadaan Kismaayo ayuu hogaaminaya gudoomiyaha degmada Doolo Soomaaliya soo hogaaminaya waxay soo dooran doonaan xildhibaanadii gobolka Gada iyaga oo markaa ku jeesan Kismaayo caasimadda Jubbaland waxaan leeyahay nabad Allah ku geeyo sagootin wanaagsan waxaan leeyahay cid ka horeysan in la soo dhaweeyo reer Jubbaland soo dhaweeyaan baan jeclaan lahayn waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan mas'uuliyiinta degmada Doolo iyo odayaasha dhaqanka ee maanta ku kulunsan degmada Doolo ee ka kooban 3 degmo Luuq iyo Doolo iyo balad Xaawo maantana diyaar u ah inay u ambabaxaan dowlad goboleedka magaala madaxdiisa hadda ku meel gaarka Kismaayo diyaarna u ah howlo u aadayo waxaan leenahay dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadda hawshaan waxa weeye aan hadda ku soconno waa hawl qaran weeye waana hawl loo baahan yahay waqtigeedii iyo taladeedii in laga qayb qaato marka haddana insha Allah halkaas ku sii jeednaa waxaan ka ambabaxaynaa degmada Doolo waxaan ku kulunsannahay 3 degmo duqowdoodii suldaanadii nabadoonadii iyo waxgaradkiiba waa kulunsannahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maantay waxaan safar u nahay magaalada madaxda dowlad goboleedka Jubbaland ku meel gaarka Kismaayo sababta aan u soconana waxa weeyaan in aan dhisno waliba wakiilada Jubbaland oo baarlamaankii hadba sida loo yaqaan marka hadee ergooyinkii odayaasha ahaa ee dhisi lahaa baarlamaanka ayaa degmooyinkan ka ambabaxayo ayadoo lagu iclaamiyay magaalada madaxda guddiga doorashada iyo ay soo iclaamiyeen sida awgeed ayaan baxaynaa haddii ilaahay idmo waxaan leenahay dadka aan ka tageynana waxaan leenahay safar salaamo meeshaan u soconnaa Allah nabad nagu geeyo annaga waxaan nahay odayaashii gobolka Gado gaar ahaan 3 degmo sida balad Xaawo Doolo iyo Luuq
waxaana u ambabaxna u soconaa ismihii dowlad goboleedka ee Jubbaland hadduu alla idmana waxaan ku sii soconnaa magaala madaxda ee Jubbaland Kismaayo hadduu alla idmo kulan looga hadlayay qoondada haweenka ay ku leeyihiin kuraasta baarlamaanka Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo war amuurtaasi ku saabsan waxa inoo hayso abshiro cabdirashiid kulankani ayaa ahaa mid looga hadlayay qoondada haweenka ayaa waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda haweenka Jubbaland waxaana kulanka qayb ka ahaa qaar ka mid ah gabdhaha sanadkan ka qayb noqonaya siyaasadda waxaana in badan muddadii uu socday la isku raacay in ay tahay lama taabtaan qoondada siyaasadda haweenka kulankani ayaa waxa daafuray wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Qamar Deeq Xaaji Khaliif ayaa ugu horeyntii sharaxaad ka bixisay ujeedka kulankani maanta loo soo qaban qaabiyay ay tahay sidii haweenka sanadkan oo ay qayb uga noqon lahaayeen wajiyada cusub ee siyaasadda dowlad goboleedka Jubbaland oo aan intii hadda dowladda Jubbaland jirtaba aan ordayna runtii in ay gabdhaha helaan siidkooda iyo xuquuqda ay leeyihiin runtii gabdhihii hore oo la yaqaan ma aha gabdhaha waxa la aqaan Kismaayo markaan nimaado runtii hal gabar oo hadli karto way yareed gabar walba ragunba inay rag u gogasho gogol mooyaane ama ay daba taagnaato gabar iyada kaligeed is wado oo wax raadinayso way yareed hadda laakiin adduunku waa isbedelay waa u jeedin waa naga maarmi weysay inaan siyaasadda soo galno maxaa yeelay noloshii guriga aan fadhinay way fiicnaan lahayd inaan guriga fadhino oo carruurta iyo reerka hayno waa wax Ilaahay noogu talagalay run laakiin waa lagu badbaadi waaye gurigii oo waxay noqotay hooyadii inay noqoto aabbe iyo hooyo mar haday aabbe iyo hooyo noqonayso waxaa laga maarmi waaye in ay sidii maxaa ragga u shaqeynaa kalena aan u shaqeyno kale wadanka dhibaatooyin fara badan aan soo gaaray 30 sano ayaanu dagaal ku jirnaa qarni iyo barkiis dhibaatooyinka waxa inta badan keenaya waa ragga waay hooyo maadaama ay hooyo nabadeed tahay oo barbaariso tahay oo ay tahay muxuu ahaa wanaaga tii ka shaqeynaysay waxaan ugu talagalnay amsana aan doorbidnay ama ay garteen haweenka adduunkaba ay garteen male hooyo ku jirta inay dhibaato ka imaan Faatumo Macalin Cali oo ka mid ah gabdhaha u sharaxan baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa ay ku dheeraad hamiga ay siyaasadda ka leedahay mustaqbalka dhow iyo waxqabadkeeda haddii ay xilkan ku guuleysato wax badan oo awal caqabada kaaga gudbanaayeen ku fududaanayo cod badan oo awal maxay ahayd aan saalo interest gareynaynin ama aan sida ahmiyad loo siinaynin ya haddii aad title-kan aad qabatid ama aad kursigan heshid ya maxay ahayd ku hagaagaya ama ku qabsoomayo wax badan waan ka bedeli doonaa insha Allah haddii ay noqoto dhanka caafimaadka oo kaleeto iyo haddii ay noqoto horumarinta bulshada meelo badan ee hadda aan ka dareemayaa in habacsanaan ay ka jirto taasna hadduu Ilaahay idmo focuska ii saaran yahay waana wax badan waa ka bedeli doonaa insha Allah dhalinyarada oo kaleeto door muhiim ah ay ku leeyihiin dalka haddana doorkoodii ma muuqdo walow aniga aan dhahaynin waan ka bedelayaa oo aan u maleynayo in awooddaasi aan lahaan doonin laakiin sidii loo bedeli lahaa waan ka shaqeynayaa hadduu Ilaahay idmo in doorkoodii muuqday ay ka helaan inkastoo hadda dadka tartamaya ama maxay ahayd xilka raadinaya baarlamaanka Jubbaland ay u badan yihiin 80% dad dhalinyaro ah marka waxaan ka leeyahay in doorkii dhalinyarada la helo haweenka in baahiyaha haweenka si dhaba looga hadlo haddana action loo bedelo halku dhiga kulankani ayaa ahaa ha igu qiimeen qabiilkayga reerka aan u dhaxayo igu qiimee awoodayda waa sidee xaaladda magaalada Dhuusamareeb oo maalintii shalay ahayd qaraxyo ay ka dhaceen Cabdullaahi Maxamed Xamuud ayaa warkaasi noo hayo
gudaha magaalada dhuusamareeb ee saacadihii ugu dambeeyey waxaa ka socda howlgallo ammaanka lagu sugayay kadib qaraxyadii isxigxigay ee maalintii shalay halkaasi ka dhacay saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in howlgalladan lagu soo qabqabtay dad la tuhunsan yahay balse baaritaan ay ku socdaan gaar ahaan 2 ruux lagu shakisan yahay sida ay saraakiishu sheegeen in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab saraakiisha ammaanka ayaa intaa ku daray in saacadihii ay ku guda jireen howlgalka ay fashiliyeen ilaa 2 qarax sidoo kalena ay wadaan baaritaano kale oo ku sugidda amniga iyo sida looga hortagi lahaa falalka amni darada oo ka dhaca magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud sidoo kale magaalada dhuusamareeb waxaa ku sugan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo saraakiil ka socday wasaaradda difaaca dalka Qatar iyadoo ku howlan dhisidii ciidamada ahlu sunna ee ku biiray dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa wada shirweynihii ugu horeeyay ee maalgashi Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan ayaa warkaasi inoo koobaya Puntland waxaa ka socda qabanqaabo loogu jiro shirweynaha maalgashiga oo lagu tilmaamay midka ugu horeeyay ee lagu qabanayo madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa horeyntii sanadkan kaga dhawaaqay shirka magaalada Garowe waxaana qorshaha uu yahay in la qabto 15 bisha September ee sanadkan wasiirka ganacsiga Cabdulaahi Cabdi Xirsi ayaa ujeedada shirkan ku sheegay in qayb ka tahay inay ka faa'iideystaan maalgelinta caalamiga ah oo loo helo soo saarista kheyraadka haatanna warkii dibadda dowladda Mareykanka oo ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaaliyeed ah ayaa bilaabay qabashada dadka sharci darrada ay ku jooga dalkaasi olole lagu baadi goob dadka magangalyadoonka ah ee sharci darrada ku jooga gudaha dalka Mareykanka ayaa laga bilaabay gobolada dalka oo dhan axadii shalay in ka badan 20,000 oo qof oo sharci darro ah ayaa ololaha lagu beegsanayay kuwaasi oo la filayo in la masaafuriyo kusimaha madaxa hay'adda socdaalka ilaalada xuduudaha ee Mareykanka Matt Albans ayaa sheegay inay beegsanayaan shakhsiyaad gaar ah oo maxkamadaha ku lahaa ballamo la xiriira codsigooda magangalyadoonka ah kuwaas oo qaadiyada maxkamadaha ay arrimaha Soogalootiga ay diideen kiiskooda Matt Albans ma uusan bixin wax faahfaahin ah ee ku saabsan dadka la soo qabqabanayo iyo sidoo kale tirada dadka ay soo qabteen ilaa hadda waxa kor u sii kacaya cabsida ay qabaan dadka Soogalootiga ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka kuwaas oo askartu xoog ku galayso albaabada xaafadaha ay ku nool yihiin dhageystayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkii aad kala socoteen Radio Gado waxaan idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdinuur Cismaan Cabdi intaan warkan warka xigaan ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sidaas nabadgelyo